السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada filimkeena maanta waxaan aragnaa actor aad iyo aad caan u ah iyo atriishadeena filimkeena wiil jacayl la sameyn jirta asigana actor ahaa ayaa waxay arkaysaa asigoo naag shuminayo kadib wuxuu u sheegayaa inuusan rabin kadib niyadjabkaas ay ka qaaday wiil agteeda taagnaa iyo shuminaysa waana actorkeena filimka asigana waa yaabaya idan markay shumisay meesha way kasoo tagaysaa asigana runaantii shumiskeeda ayuu ka fikiraa wuxuuna go'aan ku qaadanaya inuu ayada u laabto sida u weydiiyay sababtay u shumisay markuu meesha imaadan wuu buuynaya laakiin wuxuu dhul ka helayaa geed ayada u xirnaay taas wixii ka dambeeyay triishada iyadoo sawir iska qaadaysa waxay arkaysaa actorka u raadinaya shaqaalo ayadan way ku farxaysaa waxayna imaanaysaa shirkadda waan la soo dhaweynayaa ugu dambeyn naagta gacanyarada waxay keenaysaa gurigiisa waxayna ku dhahaysaa waxa artay sameysay laakiin waxa asiga ogolanaha sameynin ayadan waxay ku dhahaysaa marka asiga soo baxay aad ay u qeynaysaa sababtoo waxay soo xasuusatay inuu yahay ninkii shuminay gadaal u baxay isdheeysan kursiga ku kordhayaysaa asigana uu ku dul seexnaa waxaan ku dhahayaa wax walba adiga ma ilowdayna waxay ahaatab wuxuu ku dhahay waa inaad triishii noqotaa ayadan way diidaysaa kadibna banaanka ayuu ku soo tuuraya banaanka ayuu soo bixaysaa ayada kadib asiga saaxiibkiis la hadlayo wuxuu ku dhahay gadaasheeda qaf ayaa taagan kadib miyaarad daaqada ayuu furaya ayadan markii aragto weynaysaa ugu dambeyn habeenkii dhan wuxuu ka fiirsanayaa CC kaamirada waxaan aragnaa inuu wiil gaari ku dhufan gaaray wiilkaas inuu soo degayo wuxuu siinayaa daladiisa waxaan ogaanaynaa inuu yahay jaceylkeeda hore waxaan ku dhahayaa isilaali wuxuuna xirayaa koorkiisa meeshan uu ka tagayaa intaas wixii ka dambeeyay asigana wiilkay uu kama seerayaa wuxuuna soo qaadanayaa dalad sidoo ayadu u xareysto laakiin uu weynayaa dalada dhulka taalay oo naarkaya subax markuu waa bari albaabka markuu furo wuxuu arkayaa ayadu albaabkiisa hortiisa jiifto uu fiirinaya inay qandhaheesa ay ogaanayaa ugu dambeyn wuxuu ku soo seexinayaa fadhigiisa wuxuuna ka fiirinayaa qandhada kadibna maraayo uu qoonaya woona ka saarayaa wajiga laakiin way ku soo kordhaysaa asigana wala yaabaya woona iska xilin weynaya ugu dambeyn subax markay soo kaxday waxay arkaysaa asigoo soo deganayo kadibna waxay iska dhigaysaa inay hurdeyso asigana uu soo kor istaagaya markay indhaha furtan waxay arkaysaa inuu kor taagan yahay indhaha ayayna sii qabsanaysaa ugu dambeyn ayada guriga caadiga ugu shaqaynaysaa maalmaha kamid ah iyadoo cunto karinaysa ayuu soo kor istaagayaa wuxuuna xirayaa taakada maadaama tinta aad ay u dhiweysay mar walbana ayada guriga ayay ka shaqaynaysaa cunto qurux badanna way u karinaysaa asigan mar walba si xatooyayo u fiirinayaa quruxdeeda ayuuna mar walba la dhacayaa wuxuuna ku faraxsan yahay inay la joogto intaas wixii ka dambeeyay wuxuu waxayaa jaceylkeeda hore wuxuuna iska xirayaa kaamiradiisa ugu dambeyn wuxuu ku dhahayaa ishay ay xanuunaysaa afuuf ishay ka afuufaysaa asigana wuxuu u maleynaa labadooda inay shumin rabaan kadibna dhalada ayuu daminayaa asigana uu qaylina wuxuuna ku dhahayaa doqon waan ka ari doonaa ugu dambeyn wuxuu siinayaa geedka korka lagu xirinayay oo ayada haysatay kadib way soo qaadanaysaa waxayna ku fikiraysaa biyaha inay ku dhex rido laakiin go'aankeeda way bedelaysaa waxayna go'aansanaysaa asiga inay siiso waxayna ku dhahaysaa adiga korka ku xiro aniga hadda ka hor qaf hadiyad ahaanaysi laakiin hadeertaan marawe asigana wuu ka fikirayaa midaas ugu dambeyn waxaan aragnaa habeenka iyadoo socotay in tuug soo weeraray laakiin tuug isku markii feer lagu dhufanaya ayadan way qaynaysaa waxayna isdhahaysaa yaa way qafkan laakiin waxay arkaysaa ninka iyada u shaqaynaysa yacni actorkeena filimka asigana garabka ayuu kasoo qabanaa waxaan ku dhahaa waxba ka cabsanin ayadan midaas way ku farxaysaa kadib intaas wixii ka dambeeyay ayaga caadiga isku dhexgalayaan waxayna bilaabaysaa hawsheeda inay caadi u sii wadato intaas wixii ka dambeeyo habeen wuxuu ku balminayaa maqaayad markay imaadan si qurux badan ayuu u soo dhaweynayaa wuxuuna ka codsanayaa iyada inay triisho u noqoto wuxuuna ku dhahayaa xafladda caawa ii raac kadibna wax walba isbedelayaan ayadan way ka ogolaanaysaa kadibna xafladda ayay isku diyaarinayaan labadoodaba maanta ayada dharka u doora aad iyo aad ayaa ugu soo baxaysaa asigana aad ayaa uga helayaa kadib waxay imaanayaan xafladda ayagoo weliba aad iyo aad u qurux badan ugu dambeyn dadkoo dhan ayaga ayay ka sheekaysanayaan waxaan dhahayaan triisho cusub miya mise waa jaceylkiisa ayadan midaas ayaa la yaabaysaa dadka siday u hadlayaan ayayna dhegeysanaysaa kadib ayadoo socota ayaa nin qashqashaadayo asaga ayaana ka celinaya waxaan ku dhahayaa ma taaban kartid intaas wixii ka dambeeya waxa banaanka imaanaya actorkii la sugaayay oona tooraha la tartamayay wuxuuna sheegayaa dadkoo dhan inuu aad iyo aad u jecel yahay ayna soo dhawaadaan asagana wuxuu arkayaa geedka korka lagu xirinaya inuu asiga wato wuxuuna ogaanayaa labadooda inay isjeclaan jireen kadib wuxuu ogaanayaa ninka la tartamayay iyo ninka ayada ay jecesha inay hal mid oo yihiin midaasna wuu ka xumaanayaa
intaas wixii ka dambeeyay gabar ayaa ka maseeraysa waxayna ku dhex ridaysaa biyaha asigana biyaha ka soo saarayo kadibna wuxuu u hujinayaa go kadibna dadka hortooda ayuu ugu dhawaanayaa meesha ayuuna ku shuminaya sida uu cadeeyo labadooda inay is jecel yihiin ayadan way isla yaabaysaa run ahaantii kadib wuu soo qaadayaa dadka hortooda asigoo ximbaarsanaya oo kusoo wadaya ugu dambeyn gabadha way maseeraysaa markuu gudaha soo galan wuxuu arkayaa ninka iyada jeclaa oo ag fadhiyo kadibna wuxuu ku dhahayaa ninkan agtaada muxuu ka qabanayaan ayadan waxay ku dhahaysaa maxaad midaas u sameynaysaane maxay tahay masiirkan intaan la ekaad sameynaysid anigii adigan maxaa naga dhexeeya maanta laga bilaabayaan isla kulminayay ku dhahaysaa kadibna meeshayay kasoo tegaysaa waxayna soo qaadanaysaa boorsadeeda intaas wixii ka dambeeyo asiga mar walba inuu ayada arkaayo u malaynayaa meel walba gurigiis fiiriyana ayadayuu ka dhex arkayaa wuxuuna bilaabayaa dawgal badan inuu ku sameeyo meel walba ay joogtana oo tago laakiin ayada mar walba waxay ku dhahaysaa iga fogow mana rabo inaan kula kulmo aragaagan aad ayaan u necbahay mar walbana asiga banaanka wuu istaagayaa sidoo wejigeeda arko laakiin ayada mar walba way deerinaysaa waxayna ku dhahaysaa kuma raacay waxayna iska raacaysaa baaskiil ayadan meel walba ay joogto mis meel walba ay aadaysa wuu tagayaa wuxuuna bilaabayaa inuu dawgal badan uu ku sameeyo meel walba ay tagaysana uu dawraaco laakiin ayada waxba kama soo qaadanayso mar walba oo asiga soo dawraacana waxay ku dhahaysaa oo kaliya iga fogow maalin waxay arkaysaa banaanka shaqadeeda taagan waxayna ku dhahaysaa maxaad halkan ka qabanaysayn aniga soo kuma dhihin iga fogow kadib wuxuu ku dhahayaa gaarigayga soo raac ayadan way diidaysaa baaskiilkeeda ayayna qaadanaysaa asigana wuu soo dawraacayaa ayadan run ahaantii midaas aad iyo aad ayaa ula yaabaysaa laakiin uma joojinayso intaas wixii ka dambeeya meeshay baaskiilkeeda dhiganaysa biyo badan ku shubaayaan subaxda xigto asigana way soo diyaarinayaa ayadan markay soo bixi maagto waxay arkaysaa biyo badan inuu meesha yaalo aad ayayna u xanaaqaysaa laakiin asiga wuxuu ku dhahayaa aniga ayaa ku qaadaya kadib wuu soo qaadayaa wuxuuna saarayaa gaarigiisa kadib labadooda way heshiinayaan waxaana ku codsanayaa door inay u qabato doorkaasna hadday ka baxda wax walbana ay hagaagi doonaan ayadan way ka ogolaanaysaa ayadan makeupka asiga loo marinayo waxay fiirinaysaa gabar meesha fadhisa oo cunto cunayso saayid ayayna u fiirinaysaa gabadhan way la yaabaysaa cuntadan way joojinaysaa ayadan way ku qoslaysaa ugu dambeyn doorkii ugu horreeyay wuxuu ahaa inay labadooda is shumiyaan falbana indhahayo oo isku qabanaya ayadan waxay soo taagaysaa bishimaheeda ninkan wuxuu dhahayaa saan shamis maahan kadib wuu fiirinayaa asiga wuxuu ku dhahayaa waxaan shamis maahan kadib dhexda ayuu ka qabanayaa meeshayna isku shuminayaan gabadhii wiilka kale tiriishada wahayd markay arrintaas aragtana aad ayay u xanaaqaysaa taas wixii ka dambeeyay markay duubista dhammaata asiga ayay arkaysaa waxayna soo xasuusanaysaa shamiska laakiin way ismoomuujinaysaa ugu dambeyn ubax ayaa u soo qaadaya wuxuuna u imaanayaa gurigeeda albaabkiina ayada ka furaysa ayuu ugu malaynayaa laakiin gabar kale ayaa ka furayso markay asiga aragtana weeba suuxaysaabo kadib markuu gudaha usoo galo dadkoo dhan ayaa fiirinayaan laakiin markay arkaan si qurux badan ayay u salaamayaan asigana wuu la dhacayaa ayadan markay aragta caadi ayay iska ahayd kadib toorta ayuu u keenayaa buleerka markuu qarxiyana ayada way isku naxaysaa asigana wuu ku qoslayaa ugu dambeyn doorar qurux badan ayay sameynaysaa ayada dadkana aad iyo aad ayay uga helayaan labadoodana si qurux badan ayay u sameynayaan filim walbo kadib habeenkii markii la gaaro gabadha asiga jeclaan jirtay oo qamri daldalaysa ayuu u imaanaya ayadan hab ayay siinaysaa waxayna ku dhahaysaa waan ku jeclahay aniga adigan waad ogtahay inaan isjecelnahay kadib intay hab siinaysa wara ayaa laga qaadayaa ayadan linkiga ayaa loo soo dirayaa markay aragtana aad ayay u xanaaqaysaa dadka commentiga soo qorayaan waxay dhahayaan labadooda way isku soo baxayaan intaas kadib ayada waxay isku dayaysaa inay ka fogaato asiga mar walba ay aragtana waxay iska dhigaysaa qof normal ah oo asiga aysan jecleen kadibna wiishkii isla soo raacayaan asigana aad ayuu u fiirinayaa laakiin ayada dhinaciisa hadda ma fiirinayso shub ayayna ka dhahaysaa haweenkiina door kale qurux badan ayay sameynayaan labadoodna aad iyo aad ayay isku fiirinayaan qof walban qof kale inuu la hadlayo isku dayaa laakiin lama hadlayo intaas wixii ka dambeeyay ayada ayaa xanuunsanayso kadib isbitaalka ayuu u imaanayaa wuxuuna bilaabayaa ayada inuu ka taxdiro ayadan markay aragtina mar walba ka taxdiraya aad iyo aad ayay u farxaysaa waxayna bilaabaysaa inay saayid u soo dhaweysato haweenada kamid ah markay duubista dhamaata iyadoo meel jiifta ayuu arkayaa kadib koorkiisa ayuu u bixinaya wuuna ku daboolayaa asigana dhinaceeda ayuu seexanayaa ugu dambeyn waxaa bilaabanaysa duubis kale oo aad iyo aad u qurux badan asigana markuu arka dharkay ku labisantahay aad ayuu u helayaa si xun ayuuna u fiirinayaa ayadana sidoo kale ugu dambeyn waxaan aragnaa ayada duubistan inay aad iyo aad ugu soo baxday maadaama ay tahay agtarad hadeertan dadkoo dhan ay wada barteen waxaan la arkayaa inay tahay qofka ugu wanaagsan aktarnimo uuna dadka xishmeyso asigana mar walba uu ku dhiirigelinayaa midaas maalin
maalmaha ka mid ah ayadii gabar kale ayagoo isla fadhiyaan waxay arkaysaa asigoo soo socdo si xun ayayna u fiirinaysaa inuu usoo dhawaadayo wuxuu ku dhahay maxaa sidaan igu fiirinaysaane ila hadalno kadibna banaanka ayuu u keenaya wuxuuna ku dhahayaa waxaa rabtay inaad ii sheegtid ii sheeg ayadan waxay ku dhahaysaa waxba kuuma sheegi rabin kadib wuu soo dhaweysanayaa wuxuuna isku dayayaa inuu shumiyo ugu dambeyn maalin wuxuu kasoo xirayaa indhaha wuxuuna ku dhahayaa surprise fur indhaha kadib waxay arkaysaa meel carwo aad iyo aad u qurux badan kadib way ka helaysaa labadoodan waxay isla fuulayaan fariisyada caagyaasha ayadan aad iyo aad ayay midaas ugu farxaysaa kadib wuu usoo dhawaanaya wuxuu ku dhahayaa gacantaada ii dhiib kadib gacanta ayuu ku shuminaya wuxuuna ku dhahayaa wax walba adiga yaaye ma aqaan adiga waxaan kuu ahay kadib hab ayay siinaysaa waxayna ku dhahaysaa wax walba adiga yaaye naftirkeygabo intaas wixii ka dambeeya waxay isla cunayeen cunto asigana aad ayuu u fiirinaya ayadan way la yaabaysaa maadaama uu fiirinayo kadib wuu usoo dhawaanaya ayadan waxay isdhahaysaa waa lagu shimin rabaa ayadan canka ayay usoo dhaweynaysaa kadib wejiga ayuu farta u dhufanaya ayadan way isku naxaysaa intaas wixii ka dambeeya ayadoo wish raacisay oo wishka uga hormaraya kadib wuu u dhawaanaya ayadan way dareemaysaa kadibna wuxuu isku dayayaa gacanta inuu ka qabsado ayadan sidoo kale gacanta ayay ka qabsanaysaa labadoodna aad iyo aad ayay u farxayaan kadib xafiiskiisa ayay ku wada kulmayaan wuxuuna isku dayayaa inuu u dhawaado laakiin ayada way ka sikanaysaa ayada aad ayay ugu sikanaysaa asigana wuu u dhawaanayaa intaas wixii ka dambeeyay mool carwo hoostiis ku taala ayay tegayaan waxayna soo xiranaysaa ookiyaal weyn asigana wuu ku qoslayaa intaas wixii ka dambeeyo geeman badan ayay meesha ku ciyaarayaan asiga run ahaantii wuxuu iska dhigayaa fanaan wuxuuna korayaa maslaxa ayadan heestiis aad iyo aad ayay ugu helaysaa kadibna fariska ayay soo raacayaan wuxuuna ku dhahayaa gacantaada ii dhiib labadoodu gacantiis haystaan ayayna ciyaarayaan maalinta xigta hab ayuu siinayaa wuxuuna ku dhahayaa marwina marnaba iga fogaadid ayadan waxay ku dhahaysaa kaama fogaanayo intaas wixii ka dambeeyo maalin ayaa wuxuu arkay inay kabta ka furan tahay kabta ayuuna u xirayaa ayadan waxay ku dhahaysaa ceeb waa dadkii ku arkinay kac laakiin asiga wuxuu ku dhahayaa dadka maxay ka quseeyeen intaas wixii ka dambeeya asiga wuu xanuunsanayaa waxaan u imaanaysa jaceylkiisa hore cunto ayayna u keenaysaa cuntadaas ayuuna cunayaa laakiin ayada midaas way ka xanaaqaysaa meeshoo dhanna way kasoo tegaysaa wuxuu isku dayayaa inuu raaligeliyo wuxuuna ku dhahayaa aniga midaas ma sameyn lahayn laakiin gaajo ayaa i haysay sidoo rabta inay xafisan waxay arkaysaa ayad inay soo baxdo garab ka qabsatay kadib meeshoo dhan ayay ka tegaysaa asigana aad iyo aad ayuu u oonaya wuuna ka xumaanaya ayadan waxay dareemaysaa cidlo badan asigana isbitaalka wuxuu ka fiirsanayaa videogeed ugu dambeeyay ee filimka intaas wixii ka dambeeyay labadood way isla kulmayaan qof walbana qofka kale markuu arka xaggiisa ayuu usoo cararayaa asigoo xanuunsan markii aragtin uu soo ortayna waxay ku dhahaysaa maxaad usoo carartay asigana wuxuu ku dhahayaa adeega dartaada kadib hab ayay siinaysa waxayna ku dhahaysaa karaalnaq maadaama isbitaalkan kuugu imaan waaye kadib wuu iska xafinayaa waxayna ku dhahaysaa ma u qalmaana basta tiriishin laysiiyo asigana wuxuu ku dhahayaa haa ugu dambeyn xafladaas ayaa lagu balminayaa waxaan lagu hambalyeynaya inay noqoto tiriishada ugu wanaagsan oona ayadoo tababar gelin ku guuleysatay filimkeeda ugu horeeyay ugu dambeyn aad ayay ugu farxaysaa maalinta xigtan wuxuu u sameynayaa xaflad aad iyo aad u qurux badan wuxuuna keenayaa toorta aad iyo aad u weyn ayadan way ka helaysaa kadib wuu usoo dhawaanaya wuxuuna ku dhahayaa hambaliyo qaalideyda ugu dambeyn wuxuu ku dhahayaa raalim ka tahay inaad mar walba ii soo dhawaatid aadna iga fogaanin ayadan waxay ku dhahaysaa ma anigaa ku diidi kana waan ogolahay ugu dambeyn labadooda meesha ayay hab isku siinayaan intaas wixii ka dambeeya haweenkii xiga wuxuu usoo bandhiganayaa guur wuxuuna ku dhahayaa waxaan rabaa inaan isguursano adiga raalima ka tahayne ayadan iyadoo oonosa ayay ka aqbalaysaa waxayna ku dhahaysaa ma anigaa diidi karane kadib faraantiga ayuu u gelinayaa kadib labadooda hab ayay isiinayaan meesha ayayna isku shuminayaan kadib waxaa la diyaarinayaa arka iyagoo sawir iska qaadayaane wuxuu ku dhaxayaa badda ayadan way isku naxaysaa waxayna la gelaysaa badda kadibna way soo qabanaysaa kadibna badda dhexdeeda iyo labadooda isku shuminayaan markii banaanka usoo baxaanne waxay isku dayaysaa inay siiso neef laakiin asiga ma kacayo waxayna ku codsanaysaa inuu kaco kadib markuu soo kaco hab ayuu siinayaa labadoodna meesha ayay isku shuminayaan intaas wixii ka dambeeyay filimkeena quruxda badnaa halkan ayuu ku dhammaaday mac salaama.